madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku hanjabay in ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya kadib markii uu soo cusboonaaday khilaaf soo kala dhaxgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Uganda ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee gacan ka geysta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM oo taageera ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. ciidamada ugu badan ee nabad ilaalin ahaan u jooga Soomaaliya kana tirsan AMISOM ayaa ah kuwa Uganda oo intooda badan ku sugan magaalada Muqdisho. xiisadihii siyaasadeed ee ugu dambeeyay ayaa horseeday in si isku mid ah loo kala magacaabo wasaaradda amniga Soomaaliya iyo hay'adda sirdoonka oo halis ku ah inay carqaladeeyaan howlgallada amni ee dalka Soomaaliya. kormeerayaasha caalamiga waxay walaac ka muujinayaan in khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Roble uu dib u dhac weyn ku keeni karo hanaanka doorashada soo socota. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa si quus ah uga hadlay qulqulatooyinkii siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka una dhaxeeya labada mas'uul ee dalka ugu sarreeya. Museveni oo u waramayay TV-ga France 24 ayaa sheegay in dhibka Soomaaliya ay tahay iyada oo aanay ciidanku guduhu qaadi karin ayuu yiri mas'uuliyadda ammaan ee dalkooda, taasoo uu ku tilmaamay aydhi siyaasadeed. madaxweyne Museveni oo arrinkaas ka hadlaya waxa uu yiri haddii ay iyagu ammaankooda la wareegi lahaayeen xaaladda waa la xalin lahaa mar hore. waa inuu jirku lahaadaa difaac, laakiinse haddii jirku aanu lahayn nidaam difaac waxay ka dhigan tahay inaad la bukoonayso u xanuunsanayso aydhi siyaasadeed. marka Soomaaliya aydhi siyaasadeed ayaa ku dhacay. The issue of Somalia is where the internal forces don't come up to shoulder their responsibility. If they did, the situation would have been solved long ago. The body must be able to defend itself, because if the body cannot defend itself, that means you are suffering from political aids. Museveni ayaa ku goodiyay inuu ciidankiisa kala bixi doono Soomaaliya haddii xaaladdu sidan sii ahaato, isagoo weliba sheegay in aanu laftirkiisu aaminsanayn in ciidan shisheeye ay xallin karaan haddii aan la helin xal maxalli ah oo ka yimaada dalka la caawinayo laftigiisa. isagoo arrinkaasi mar kale ka hadlaya waxa uu yiri waxaan arrintan la soo qaadi doonaa ururka midowga Afrika, balse aniga laftigaygu ma aaminsani in faragelin shisheeye ay xalinayso. madaxweyne Museveni wuxuu goobjoog u ahaa heshiiskii caanka ah ee Kampala Accord ee dowladda Soomaaliya looga saaray ku meel gaarka. xilligaas waxaa si wada jira heshiiskaasi u saxiixay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyihii baarlamaanka ee xilligaas Shariif Xasan Sheekh Aadan. waxa kale oo markhaati ahaan u saxiixay heshiiskaas madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo ergeygii xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsanaa Soomaaliya Augustine Mahiga. waxaana lagu saxiixay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda. dowladdaas waxaa xilligaas ra'iisul wasaare ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigan. waxaana xusid mudan in waqtigaas Farmaajo looga yeeray Kampala si loola socodsiiyo heshiiskii Kampala oo dhigayay in uu xilka baneeyo uuna madaxweynuhu soo magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub muddo ku siman 30 cisho oo ka bilaabmayay markii la saxiixay oo ahayd 9kii bishii Juun sanadii 2011. madaxweyne Museveni ayaa isla xilligaas ku hanjabay inuu la bixi doono ciidamadiisa oo ahaa kuwii ugu horeeyay AMISOM ee Soomaaliya la geeyay 2007. dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa rumaysan in dhibka ka jira ay ugu weyn tahay dadka maamula siyaasadda Soomaaliya ka bilow dowladda federaalka ilaa maamul goboleedyada oo aan lahayn karti garasho daacadnimo iyo qorshe dalka looga saari karo dhibka taagan, iyadoo dhaliisha nooli ay tahay sida haatan loola dhaqmayo kiiska gabadha la leeyahay ee Ikraan Tahliil
oo xasarad siyaasadeed oo dhinacyo badan kicisay.